sanad guuradii 28aad ee ka soo wareegtay xuska maalinta 18 May ee la soo noqoshada madaxbannaanida Soomaaliland ayaa laga xusay xarunta gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo. Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay ururada bulshada rayidka, allaamaha wasaaradaha dawladda, ardayda dugsiyada kala duwan iyo ciidamada kala duwan ee qaranka. waxaana bulshada reer Ceerigaabo munaasabadan kala soo qayb galay wasiirro iyo mas'uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland, mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada, iyo saraakiisha ciidamada kala duwan. waxaana mas'uuliyiinta munaasabadaasi ka soo qayb gashay halkaasi saraan sharaf kaga qaateen cutubyo ka mid ah ciidamada qaranka ee maanta u soo baxay xuska May. waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro oo labadooduba ka hadlay muhiimadda ay maalintan u leedahay go'aansiga Soomaaliland. sidii guuladii jamhuuriyadda Soomaaliland marka ugu horeeyay waxaanu ilaahay u weydiinaynaa dadkii u dhintay calankan ilaahay u naxariisto dambigoodana dhaafo. waa maalin weyn, waa maalin nacabku ka naxo gacalkuna ku farxo. waxaa jirta canaasir yaryar badan oo wax ka sheegtay 18 May. waxaanu leenahay 18 May in iyo cawri balaw waxaanu rajaynaynaa sanadka dambe haddii la yiraahdo in maalinteeda horumarka aynu gaarnay ka ballaaran inaynu ku gaarno insha Allah. waxa kale iyaguna munaasabadaasi dhankooda ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye, wasiirka wasaaradda cadaaladda Cabdirasaaq Cali Saalax, wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Maariyaha Madbacadda qaranka iyo mas'uuliyiin tiro badan oo dhammaantood sharaxaad ka bixiyay taariikhda iyo milgaha ay maalintani leedahay. 28 sano qarankani taagnaa naraarba waxaynu ka soo gudbaynay marxalad 18 May inaanay dhayalku inuu weyn ogsoonahay ninkii yiraahdo dhayal bay ku timid ama cid bay iskalana been buu isu sheegay ummadda reer Soomaaliland baa wadale burca kaga heshiisay booraba ku jeedisay qarankan ku dhistay oo ku taagtay. waxaan leeyahay 18 May geli mayso muran. waxaan idinku boorinayaa midnimadiina, waxaan idinku boorinayaa ilaalinta nabadgelyada inaad adkaysaan, waxaan idinku boorinayaa inay idin cid kasta oo dalkan dhagar ka gasha ama dadkeega wax yeesha in gacanta lagu soo dhigo. waa maalin taariikhi ah. waxaa ii muuqata in dadka reer Sanaag gaar ahaan dadka ku nool degmada Ceerigaabo ay si aad iyo aad u weyneeyeen maalinta 18 May. maanta waxaan xusaynaa 28 guuradii ka soo wareegtay maalintii aynu dib loo soo noqonnay calankeena oo muddo badan inaga maqnaa. sanad guuradii 28aad ayaynu xusaynaa maanta. calankan iskama imanin oo calan iska yimi oo la soo noqday oo bariye ku yimi mu ahayn. waa calan dhibaato badan loo soo maray, dad badan u dhintay, kumanaan kale u naafoobeen, kumanaan u agoomoobeen. laakiin haddii maanta aynu hoos harsanayno isagoon ciidan dejinahayn oo la ilaaha illa Allah ku qoran tahay, alxamdulillah bil caalamiin joogna. madaxweynaha qaranka Soomaaliland wuxuu idinla doonayaa wanaag iyo sharaf iyo karaamo idinla doonayaa. maalintii dhaweyd waxa la yiri hadalku waa hunguri hadba waa dhinaca loo jeediyo. madaxweynaha qaranka Soomaaliland dhacdadii ka dhacday deegaankeena ee ciidamadii lagu dilay wuu ka naxay, si qalbi ah buu uga naxay. wax kala ma ahayne bandowleeyda ma saarin oo leer kale idin kama baqtiinaynin oo leedima ciqaabaynin. qaar baa ciqaab u fahmay saama ahayn ee amniga lagu adkeynayay. amniga la doonaya inaynu adkeyno. haddaynu inagu Sanaag amniga adkeyno oo ku isku filaano oo ciidankeena maqalno oo inta yar leeynu xamalay iska dayno cidda bandowna saari mayso. Wayunis Sheekh Ahmed, Universal TV, Ceerigaabo.